Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabtay sharafta la sidaytiin mii fiican tihiin aan weydin wanaagsanahay subax wanaagsan hadda ayaan soo kacay waa 6dii oo wax yar dhiman waan soo weysaystay salaadii subax weeyaan salaadii subax waan soo tukaday kadibna waxa weeye adkaar yar baan akhrisanayaa maanta waxa weeye video oo routine ah idin duuba insha Allah ani caadiyan subaxnimadkii xilli hore ma tooso sababtoo ah habeenkii baan shaqeeyaa laakiin xalay fasax baan ahaa marka ma shaqeynaynin xalay toole marka xilli hore iska seexday saakana xilli hore iska soo kacay waxa weeye waan soo tukaday adkaar baan soo akhristay kadibna koob biyo baan soo qaatay waxaan rabaa inaan fitamiinaadkayga cuno marka fitamiinada cuno waa laba fitamiin midkan oo bacda cas ku jira waa multivitamin fitamiino aad iyo aad u badan baa ku jira especially B vitamin buu u badan yahay midkan cadaanka ahna waxaa waaye vitamin D calcium magnesium zinc afarta xabo ka kooban yahay marka intaan hadda diet-ka bilaabay ani vitamiinkayga waa iska qaataa si aan awood darro u dareemin marka kaas mid walba hal xabo vitamiin aan kasoo saartay biyihii baan ku liqaayaa waxa weeye qofka hadduu diet ku jiro amba maxaa la dhahaa uu cunto xuma hayso oo cuntada si fiican u cunin vitamiinaadka inuu cuno waa laazim ku anfacayaan fitamiinadeedii aan cunay haddana waxaan soo galay halkaan iyo qolkaygii fadhiga waa hore laga rawaxay saan buu isku dhex yaalaa waxa weeye qolku markuu family room iska yahay oo mar walba la isticmaalayo mar walba la joogo waqti lagu qaadanayo si yar oo fudud buu sax ku noqonayaa marka qolkan baan kala rafici doonaa aan kala hagaajin doonaa insha Allah ani gabar baa ii shaqaysa oo shaqiyad baan haystaa waxay ii samaysaa weelka jada suuliga waxaas oo dhan bay iga nadiifisaa ana guriga inta kale baan nadiifiyaa marka hadda waxa weeye qolka fadhiga iska hagaajinaya ilaa inta 10kii barka gaarayso oo xilligan cunteynay ay gaarayso birkimooyinkii baan ka qaaday fadhigii waan hurgufay ani ruufar ma haysto waxa weeyaan marka waan iska hurguftaa fadhigayga waniga hurgufay birkimooyinkii baan usoo yara toosiyay waaweynaa waa soo yara giijiyay kadibna birkimooyinkii kala yaryar ayaan soo qaadayaa ayagana waa ku sharxi doonaa insha Allah birkimooyinka galalka kama bedelayo 10 cisho ka hor baan galalkan gadiyay midabkan gareyga ahna waaba ka helaaba sababtoo gidaarka iyo fadhiga iyo dhulka intaba uu match gareynaya qurux uu soo saara waa kaas hadda birkimooyinkayga dhexda saa uga jajabiyay waa eegaya ma toosan yihiin way toosan yihiin dhac midaa yar baan shan kaga dhigay dhexdan geliyay waa kaas hadda fadhigii waan habeeyay kadibna cadarkan baan soo qaatay cadarka aad iyo aad buu udgoon yahay wadankii baa laga keenay cadarkii aan ku buufinayaa fadhigii oo dhan haddana miiskan center table-ka ayaan nadiifinayaa taraygayga dhexdiisa wuxuu baarka kolbaanoo shay dul dhigay hadda saacadii qalin baa ku jiray waan ka saaray qoryihii oo cadarka ku dhex jireen ayagana muddo badan bay ku jireen waa ka bixiyay qoryihii marka quraaradii hadda cadar kalaan kusoo kordhinayaa waxaana kusoo ridayaa qoryo cusub 6 qoryo cusub cadarka nooca maanta isticmaalaa waxaa waaye lemon amba liin dhanaan baa laga sameeyay waagii hore lavender baa isticmaali jiray marka lemon tan tijaabiyay isku udgoontaadana waa iska fiicantay ma xuma maxaa la dhahay tarayga halkaas saaran waagii hore mid quraarada haysan jiray 2-3 cisho ka hor baa dalbaday kan oo uu ii yimaaday midkan cusub oo aan iska bedelay kii quraarada ahaa waxa weeye meeshii hadda ku buufiyay baalyar waan tirtirayaa waan masaxayaa tarayga ma masaxayo asaga turaado baaban kala habeeyay haddana miiska cuntada ayaan ku yaaci doonaa oo aan kala rafici doonaa waxa waaye miiskayga waa miis iska yar 4 kursi buu leeyahay laakiin 2 kaliya baa hadda isticmaalaa labada kale meelo kale aan kala geystay guriga igu yarsaa darteed baan labada kale meelo kale u dhigay labadan baa isticmaalnaa waxa weeye miiskii wixii dul saarnaa baan ka qaaday hal baan ku buufiyay kadib miiskii aan tirtirayaa tissue baan ku tirtirayaa haddaan tuwaal amba maro ku tirtiro miisku ma dhuufuf ku reeba marka tuwaal dhan ma taabsiiyaba miiskaygan tissue-gayga iskaga nadiifsadaa waxa weeye gabdho waxaan ka codsanayaa inaan waxa weeye channel-ka meel sare aad gaarsiisaan oo aad like iyo share iyo subscribe iyo wax walba igu caawisaan insha Allah oo waxa weeye kanaalkan idinku baa wadi karay aad ila wadaan insha Allah hadda waxa weeye
barkimooyinkii halkaa dul saarnaa ayaan ka qaaday. Labadii kursi baan wax yar hor kufay. Kadibna barkimooyinkii waxa weeye 2 barkimo kale aan soo qaatay oo 2 galoo kale ku jiraan. Oo galalkan waxay u eegyihiin maatka miiska saaran. Waxayna u eegyihiin kuraasta galkooda. Soo kaasa miiskiisa ku soo nadiifiyay. Kadibna waxa weeye mafiiqdeedii caasha dheer baan soo qaatay. Mafiiqdan wadankan aan joogo baan ku arkay kulli waxaan isdhahay malaha dee wadankan baa isticmaala. Tii aan ku nadiifiyay. Waxa weeye mafiiqdan yarka waa iska jeclahay sababtoo ah fadhiga hoostiisa, kuraasta hoostooda, miisaska hoostooda meel walba way galaysaa. Tii waxa weeye meelihii oo dhan aan ku soo nadiifsaday aan yacni ku soo fiiqday. Kadibna waxa weeye markaan fiiqitaankii soo dhameeyay waxaan soo qaatay masaxaadii biyaha aan wax ku masaxayo waxaan ku soo shubtay carfiso bahal ah oo dhulka lagu masaxo oo udgoon urayso strawberry soo meeshii oo dhan aan masaxayaa. Masaxaadan isticmaalayna waa masaxaad yar oo aan u bogay. Saa u jeedaan fadhiga hoostiisa galaysaa ay soo masaxaysaa. Kuraasta hoostooda meel walba way ku galaysaa. Soo kaasa meeshii oo dhan aan soo wada masaxay, soo wada tirtiray. Kadibna uunsi aan soo shitay. Kaasa dee fadhiga uunsiga u soo shitay. Uunsi kaale iska arag ah. Oo udgoonkiisa la yaabay baa ku shiday gurigii. Fadhiga qaybtiisa kale markii idin ma tusin saambu u eegyahay. Xabad single ay taalo. Mid walbana barkimadiisa weyn iyo hal barkimo yar oo cadaan ah baan soo dhigtay. Waa kaasa halka ay fadhiga cuntadana waxa waaye hal xaboogeeda ayaa idinka dambeeyay oo hadda aan soo saaray. Waa kaasa gurigiisaas aad u jeedaan nadiif uga soo dhigay. Gurigeygana waxa weeye ma yaalo carpet amba roog sababtoo ah dhulkiisa u eeg roog marka wax roog ma dhigeen. Soo haddana waxaa imaaday jikada. Waxaan rabaa inaan quraac yar ka soo tuurto. Soo maqli baan dabka soo saartay. Maqliga waxaan soo mariyay wax yar oo saliid olive oil ah amba saliid saytuun ah. Kadibna 2 xabadood oo beedaan ku soo jabiyay. Waxa weeye waxaan korka kaga soo darsaday wax yar oo milix ah. Milixda nooc isticmaalaya waa pink saltiga nooca la dhaho. Waxaan kaloo ku soo darsaday wax yar oo filfil ah iyo wax yar oo basal aan soo jarjaray ah. Soo hadda beedkii basashii ayaan si fiican isugu yara shiilayaa. Quraacda hadda samaysanayo waa quraacdeedii oo diet ka ahayd amba wali iscaateys baan ku jiraa. Hadda channel-kayga la socotid kulli waa ogtay inaan ayaantan iscaateysan ku jiray. Markaan hadda la iscaateys ku jirtid quraac idea waa ka heli kartaa. Soo beedkii basashii markaan si fiican isugu soo shiilay aan isku soo jajabiyay. Waxaan ku soo darsaday wax yar oo spinach amba koosta ah. Kadibna intana waxa waaye si fiican isugu shiilaya oo waxa weeye si fiican isugu bislaynaya. Markii waxa weeye ii soo shiilmatay kadibna dabka ayaan ka daminayaa. Soo kaasa videoga boobsiisa ku furnaa. Way soo bislaatay. Hadda ayaan dabka ka dajinayaa. Soo halkaan hal xabo rooti aan ku diirsanayaa. Rootidan waxa waaye qamadi ka samaysan tahay. Maqliga kulul baa rootida kolba dhinac u saaraya. Kadib rootida ayada saas shaaxid u noqonaysa oo u casaanaysa. Soo saas rootidina diyaar igu tahay oo u soo diirsaday. Soo kana quraacdeedii san ayaan ku soo diyaarsaday. Bileerka qayb ka mid ah beedkii alaabtii aan isku soo shiilay baan soo saartay. Halkii xabee rootida ahaa intaan dhexda ka soo kala jaray baan dhinaca soo saartay. 2 nooc oo cinab ahna geeskan aan ka soo saaray. Geeska shishan waxaan ka soo saartay jeex oo apple ah amba tufaax ah oo aan soo googoostay. Soo cuntadii waa soo qaatay qolkan waxaan keenay miiska cuntada. Coke green tea waa soo samaystay. Soo quraacdeedii saas ay diyaar igu tahay. Quraacdeeda cuni doonaa. Kadibna video baan rabaa inaan editing ku sameeyo. Soo videogan intaan aan ku joojinayaa. Intaan videoga ku xiga kulmayno. Waxaan kaga tagayaa maca salaama.